dhacdo lama filaan ah ayaa ninkan caadiga ah noloshiisa waxa ay u bedeshay in uu caan noqdo. Fauja waxa uu ku dhashay waddanka Hindiya sanadii 1911 isagoo lugihiisa ay ahaayeen mid aad u liito. Muddo dheer ayayna ku qaadatay in uu ku istaago lugihiisa, waxayna arrinkaas u keentay niyad jab aad u weyn iyadoo ilmaha yaryar ee aad ugu qosli jireen xilli uu ku dhacdhacayo guriga banaankiisa. Sanado badan kadib Fauja uu soo xoogeystay waxa uuna reerkiisa ka caawin jiray beer falashada. Kadib markii uu noqday nin dhalinyaro ah ugu guursaday waxa uuna mas'uul ka noqday beerta reerkiisa. Ninkani ayaa waxa uu ku noolaa asaga iyo awlaadiisa nolol aad u farxad badan. Laakiinse bilowgii sagaashamaadkii waxaa la soo daristay murugo aad u weyn kadib markii xaaskiisa iyo gabadhiisa ay geeriyoodeen. Muddo kadibna waxaa geeriyooday wiilkiisa oo ay madaxa ga dhacday bir oo laba cad u kala jartay. Fauja waxa uu dareemay xilligaasi in noloshiisa halkaas ay ku dhamaatay. Waxa uuna habeen iyo maalin dhex socon jiray tuuladii uu deganaa isaga oo ooynaya. Kadib markii ay noloshii Hindiya aad uga adkaatay waxa uu u safray waddanka Ingiriiska si uu ula noolaado wiilkiisa curadka ah. Waxa uuna go'aansaday in uu ka baxo noloshii murugada ahayd. Waxa uuna isku dayay wax si uu uga baxo murugadaas. Waxa uu bilaabay in uu noqdo orodyahan iyadoo xilligaas uu ahaa nin aad u weyn. Haddana waxa uu bilaabay tababar iyo ka qayb qaadashada orodada gaagaaban. Isagoo jiro 89 sano ayuu ka qayb galay orodkiisii ugu horreeyay. Waxa uuna aad ugu dhex muuqday orodyahanadii ka soo qayb galay orodkaasi 10,000 kiiloomitir. Muddo aad u yar ayuu wuxuu ku noqday orodyahan caan ah. Waxa uuna ku guuleystay abaalmarino dhowr ah. waxaana u suura gashay in shirkadaha waaweyn ee dhanka xayeysiinta ay heshiis la galaan. Sanadba sanadka ka sii dambeeyay almiitada Fauja ayaa soo taraysay xilli ay da'diisa aad u sii weynaanayso. Sanadii 2011 isagoo 100 sano jir ah ayaa waxa uu dhigay rikoor cusub isagoo noqday qofkii ugu horreeyay oo 100 sano jir ah oo dhammaystira orod. Arrinka Fauja ayaa dhakhaatiirta aad ula yaabeen waxa ayna baaritaan ku ogaadeen in lafihiisa ay u dhigmaan qof 40 sano jir ah. Arrinta ka dambeysay guusha Fauja ayaa ahayd in uusan weligiis cabin sigaar iyo khamri. Waxa uuna cunto ahaan u cuni jiray khudaarta cagaaran. Waxa uuna aad u cabi jiray sanjabiil iyo shaah madow. 2013 Fauja waxa uu kabi ahaanba ka fariistay ciyaaraha orodka isagoo 103 sano jir ah. Ilaa iyo hadda maalin walba wuu ordaa, waxna iskama bedelin jirkiisa iyo caafimaadkiisa. Nala wadaag fikirkaaga, ma kula tahay in cuntada wanaagsan ay sabab u noqon karto in caafimaadkaadu u wanaagsanaado ilaa aad ka daqowdid?